sharaf ay noo tahay inaad naga soo qayb gashaan maanta kulankan laga arinsanayo horumarka ka socda gobolka wadada Ceel Daahir Ceergaabo waxaa marti inoo ah inoo jooga sheekheena Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo dabcan aynu isku xog wareysanayno mudanayaal saad la socotaanba madashan aadka u sharafta badan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan iska xog wareysan doonaa xaaladda wadada Ceel Daahir Ceergaabo maadaama gudoomiyuhu inala joogo intaynu barnaamijkan aynu ku guda jirno barnaamijkan waxa soo abaabulay hadaf oo ah dabcan xarun cilmi baariseed oo dhalinyaro badan oo inta badan ka shaqeeya xagga horumarka ay soo abaabuleen sidoo kale waxa barnaamijkan nagala qayb qaadanaya manhaj oo nagala qayb qaadanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamtaas ay ku dhantahay waa xilli gaaban oo Soomaalida waxay tiraahdaa galab habeen huwan xilli gaaban weeye waxa kaloo layna yiri qofkii wuxuu leeyahay 2 daqiiqo waxaanu isugu nimaan waa talo horta aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa guddigii ka shaqaynaysay wadadaas waana u ducaynaynaa ilaahay baan idinka jaasa marinaya innagu reer Sanaag haddaynu nahay inaynu xisaabtanno ama cid canaanano xaq uma lihin dadka loo shaqeeyaa baynu nahay sidee baynu u canaanan karaa cid innagoo laynoo shaqaynayo cid maba canaanan karo totally ma canaanan karo waxa meesha ka furanayna waxa weeyaan hal kaliya weey waa dhaqaalihii laynaku qoondeeyay iyo waxaanu ku daro iyo dadaal baa laynu ka baahan yahay hadal kale oo meesha maanta ka furanin ma jiro totally ma jiro haddii aynu xaqiiqo ku hadlayno weeye wadada calaamadeeda markii aan eegno anigu wadooyinka waa ka shaqayn jiray injineer ma ahayn laakiin waa ka shaqayn jiray wadooyinku 2 system baa loo dhigaa systemkii ugu qaalisanaa baa loo dhigay waxa weeyaan carratuur dusha saaran waa shil badan yahay oo dhibaato badan yahay wadana waa wadada aasan waa taas oo kale weeye waa ka qiimo badan tahay waxay ka qiimo badan tahay 80% ee wadada taagan ka qiimo badan tahay wadada aasan waxa ay ku badbaadana waa asnaanta ay aasan tahay weeye dhulkii baa la jeexay halkaas carratuurkii laga soo bilaabay sidaas ay ku badbaadeen haddii ay tahay carratuur oogada saaran daadkii ugu horeeya la tagi lahaa waxaadna ku garanaysaan carratuurka oogada saaran magaalada la yiraahdo Xaaji Khayr buundadeeda ku garanaysaan sida uu galay daadku idinka arkay habeenkii uu la tagay anigu waa joogay Xaaji Khayr lafteedan joogay habeenkii daadku halka la tagay waxa uu qaaday waa taagnaanta waana ka shil yar tahay hadday aasan tahay 2 baawur hadday iska hor yimaadaan oo ay isku khatarmaan wuu ka degi karaa hadday wadadu aasan tahay haddii ay wada taagan tahay ama labadii oo ka dhacayaan ama way isku dhacayaan wadadan horta injineeradii sameeyay iyo guddigii wadada waxaanu ilaahay u weydiinaynaa waxsan baan u weydiinaynaa waxaana loo baahan yahay reer Sanaago hadalkan uma baahnaa hanti baa loo baahan yahay hawlka madaale wali waa ogadii waa inaad degdegtaan gudoomiyahana waxaan leenahay gudoomiye khayr baa noola timi khayr nagala tag waan ku ducaynaa safar salaama wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن كسكر جلاش وسلامتين والبتات الكولي بسلامين لما دقيقة أيها ليري مركز قدومية وسود وين يكوح والله صعطة أربع لنا سنتها قدومية قدومية وحير بال خصوصية وطلع المركز كسر كريو أنا ليش دار بانهي وطلع لك عبد الرحيم مركز إلى عربي مش الأجري يبي أنا بقول أفضل كلامك قصار البرية وحى تضاب بالوضع الكسور شبران وضده هذا لا تصل بالسا وطلع المركز ليش هذا الشيء ولا جالنا الشيء والله يمر من الشيء والله يمر من ولدته أما بروح على وضده وضع جهد بعض السمايان يقوي الدلالين وطلع أفر الرباط بعض اليابي ومركو بطلان oo la rabay inay ka qayb qaato aadusad la baadaabay dadku butlaan yahay sidii la rabay waa qayb galin xoolaha dhalinyarada oo iskuul ah iyo xoolaha dekada oo baxooya laga urushay talabaad waxay tahay shacabkii deegaanka lahaa si fiican lagama qayb galin wax yar oo wadada barto ayuu baa wax ka bixiyay oo xoolaha urushay sidii la rabay loo maalin taasina waa hogaamsi taasad dawladda butlaan way hogaamsi halka qaban
wax badan bay qaban lahayd dowladda butaayada maysan lahayd weliba tiyoora la qaato wax badan bay dadada kala xidhxidhay xoogaa shabaab ogolaatay la sameeyo hadda waxaan u aragnaaba in la joojiyeyba total oo madaxweynaha cusub uu joojiyey weli waxaa lasoo qariya waxay tahay waxaa kaloo culyaamay injineernimada oo indhala-aana waxaan leeyahay gudoomiye culyaaminta weyn halkaasi ka tiri waddada wax badan juhdi badan baa samayseen way fiican tahay waa dhigjoojin hadda boqolkiiba 30 baa taagan ilaa loo sameeyo buundooyinka la sameeyo oo kalfatiska la sameeyo oo waddada biyaha laga xidho laami ma jiro waa markay wax kala qaadaynaa wey laami jiraa ma jiro ilaa la dhammeeyo eftisad waddooyinka loo dhammeeyo maxay tahay biyo xidhkii buundooyinkii wadajiifkii kalfatiskii ilaa loo dhammeeyo laami la saari karaa ma jiro waa indhala-aan labaad juddan waxaan ku leeyahay aad baad mahadsan tahay xil iska saar waddada iyada ah waxaa ka dhiman laami weydadna fan dambe fanka u dambeeya laamigu waddooyinkii iyo caratuur dambe u harsan iyo gooyin baa u harsan waddada dhul badan baa weli aan gooyin u baahan caratuurkiina u baahan tahay tuwagii baa dhul ku anfideen markii waddada loo sameeyo kalfatiska iyo buundooyinka oo biyaha laga xidho waddadiinta doonta jiri kartaa laakiin mar walba haddii aan laataantii gelin halkaa imayaan wadada le ood weyne baa 18 kilomitir ilaana saareen bari xoogaa ficilay qaaday habeen baa daadiyo 18 koo qaaday hasha waxay gelayaan waa dhaqaale Soomaaliyeed waa dhaqaale inuu leeyahay meeshuu gelayo inuu hubiyo oo la saxo waa muhiim gudoomiye xilkaas adaa laga rabaa inta kale waa ku fiicantiin ururta ku fiicantiin xil dambe iska saar hawsha ayaan cagta ka dhigo salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wasallam alxamdulilah ilaahay baa mahadle allaha inagu kulmiyey howlkan inaynu isugu nimaadno arrimo masaalixi ah oo ajar if iyo aakhiraba ay uu khayr ku jiro waxaynala jooga culimadii gobolka ama culimadii Puntland khayr allaha siiya dhowr mudana ka waday nadwa ka waday ummadana khayr u sheegay waa uga mahadnaqaynaa ilaahay khayr ha siiyo adduun iyo aakhiraba galabta mawduucu wuxuu ku saabsan yahay waxaanu la codsaday in maadaama uu inala joogo gudoomiyihii wadada ceel daahir ilaa ceerigaabo khayr allaha siiye mudana wadadu lagu hawlanaa wax badan laga qabtay si habsamiyo oo wanaagsan u socotay iyadoo xaqiiqdii aan gacan wanaagsan ka helayn gudidaasi dadka ama maamul ha noqdo ama shacabka ha noqdee aan runtii la isu tiirin oo sidii la rabay inay wadadu u socoto aanay u socon waxaan galabta halka isugu soo u codsanay shirka ama mawduuciisu uu yahay waxa jirta wadadu in ay muddo hadeer hakad ku jiray waxaanu nahayn odayaashii had iyo jeer lacagta u gelinayay madaxweynaha oo lahayn 6 sanad iyo barkii aad dalka joogtay ama aad waxaanu ku bilownay ilaa 3 bilood soo aan bahayn baanu ku bilownay waxaanu cagta ugu gelinaynay in aanay wadada hakad ku dhicin waayo wadada hadii dawlad baa wada shacab ma wadi karo waxaynu dareensanahay dhaqaalaha Puntland ama dhaqaalaha maanta dalku waa burbur dawlad dhexe male wax kaaba male sida wax lagu wada waynu ognahay meelaha wax lagu rurayna waynu ognahay waxa jirtay marka in la sameeyay wadada qaabkii wax loogu ururin lahaa dhaqaalahan ku baxayana meelihii laga heli lahaa in la calaamadiyay ilaa heer qabaa'il la calaamadiyay waxa marka la calaamadiyay xaqiiqdii iskuulada gawaarida Puntland cashuurteeda taarikadeeda sidata waxa soo dega percentage-ka ay ku yeelanayso meelaha badan baa loo qoondeeyay si wax loogu dhaqaale loogu helo wadadaasina ay ku socoto waxa loo soo gudbay haddana markii la eegay qabaa'ilka runtii madaqada Sanaag jooga oo khayr allaha siiye de runtii dad xoolale laguna wado inay yuhun leeyihiin oo wax bixin karaan markii loo soo gudbay dadka waxa isku qorqoreen lacago waxa la isku qoray lacag 2 milyan ah lacagtii 2 milyan ahayd xaqiiqdii marka aynu dib ugu soo noqono inagu teena dib ugu soo noqono intaynaan cid kale cambaarayn ama cid kale taaban lacagtii 2 milyan ahayd oo laynu ku qoray oo madaqada lagu qoray oo la rabay inay si dhaqsale u soo focoto lana eegay inay fududahay maanta jeebka reer Sanaag ay ku fududahay oo amikaba ay soo bixi karto dal iyo dibadba wax yar baa qabaa'ilkii lagu qoray istiilay waynu ognahay inta istiishay khayr allaha siiyo waa 3 reer
reer afrayaa ma jiro qabaa'ilku intuu ka kooban yahayna waynu ognahay waxaana la inoo sheegay lacag wadadu inay u fadhido dhaqaale inaanu jirin una hakatay una taagan tahay haddeer waxa loo ayaboohay waxa ay tahay waxa aynu aragno waa 5,000 oo foosto oo maxaa la yiri alkhayr allah 10 kilomitir 10 kilomitir bay ku baxaysa 10 kilomitir marka aan ku soo noqono wadada tayadeeda xaqiiqdii jaygi halka la dhigay markaynu aynu ilaahay darti u hadallo jaygi halka la dhigay wuxuu dhaamal dhulaami la dhigay baynu ognahay inuu dhaamo waxa weeyaan laba guuba isaga tabatay iyo labadoodii dayrood oo aan roob ka qaadin bihi halka wadada marayna ilaahay waa og yahay bini'aadamkuna waynu wada ognahay ma dhaqa waynu wali waaragtaa si u soconayso waxaan markaa ku amaanayaa injineernadii iyo farsamadii halka ka dhacday meel kasta waa kaga amaanay runtii waana ugu duceeyay ninka injineerka waxaan leenahay injineeradii halka ka sameeyay wadada waxa uu marxaanti ah wadada roobkii ku dhacay iyo qaabkay wali u sii taagan tahay iyo qaabkay tahay taa inuu ku soo celiyo oo waxaan leenahay maanta wuxuu inoo sheegay gudoomiyuhu hal foosto iyo hal qof waxaan leenahay hal foosto iyo hal qof hadda ka lagama duwin qabaa'ilka lacagtii ku qoraa sideedii bay ku qoran tahay hal foosto iyo hal qofna sidii ha loo wado oo hal laysu tiilo aragtida waxa ina kaga filanna wado qiimaha ay leedahay roobkii ku dhacay iyo inta aynu ku manaafacaadsanay bilaabay daamurkii bay taagan tahay waa fayskii labaad Ceergaabo iyo waxa inoo haray hadafkii inta ka sooysa inoo dajiya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wixii faahfaahin nagala soo xiriir ciwaanada hoos ku qoran